halis weyn oo aan lagu baraarugsaneyn ayaa ka dhex socota baraha bulshada. Dadka Soomaaliyeed oo ah dad boqolkiiba boqol muslimiin ah waxaa maalmahan ku soo kordhay baraha bulshada akoomo faafinaya diinta Kirishtanka kuwaas oo ku baxaya luqadda Soomaaliga. Akoomadan oo aad u fara badan ayaa waxaa ka mid ah akoon lagu magacaabo Gospel for Somalis. Akoonkan wuxuu faafiyaa diinta Kirishtanka waliba wuxuu ku baxaa luqadda Soomaaliga. akoonada sidoo kale waxaa ka mid ah akoon la yiraahdo Ilaah Soomaali oo isaguna ah mid ka mid ah akoonada faafinaya diinta Kirishtanka. waxaa intaas ka sii daran akoon la yiraahdo Bible Word oo isagu kan waa midka ugu daran waxa uu bixiyaa koorso oo ku sheegay koorsada Bible Basics. akoonadan iyo kuwa kale oo badan waxa ay faafiyaan diinta Kirishtanka balse ma aha kuwa halistooda lagu baraarugsan yahay. welibana waxaa ku xiran sponsor oo waxa ay marar qaar ka soo muuqdaan dadka Facebook lacagta ka sameeya ay ugu xiran tahay xayeysiinta monetization-ka. dadka Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol dad muslim ah culimo ay dhex joogto way arag u dhex joogo waxa la gudboon inta ay arintu goor tahay inay ka hortagaan arintan inta aysan faafin aysan sameeysan dad badan oo ay baraan diinta Kirishtanka. dad badan oo baraha bulshada ku xiran ayaa si adag uga falceliyay balse weli ma jirto ka hortag weyn oo looga hortagay arintan. warbixinadan iyo kuwa kale oo ka xiisa badan waxaad maalin walba kala socon kartaan Garsoor TV si aad noogu xirnaato mar walba ay kugu soo dhacaan. subscribe saar janaalka muuqaalka like saar lana sii wadaag asxaabtaada. waad mahadsantahay.